way kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan rabaa in ay la wadaago warka cusub ee ka soo baxay khilaafkii u dhaxeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo waliba sidoo kale labada maamul ee shirka markaasi madasha wada tashiga qaran ee waqtigan la joogay ka maqan xalay madaxweynaha Jamhuuriyadda oo kulan xasaasi ah markaasi uu la yeeshay labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya macluumaadkaas ayaan rabaa in halkan kugu la wadaago hadii ay tahay markii ugu horeysay ee uu ku soo gaaro muuqaalka fadlan oo la garo oo share gare si meel dheer u gaaro nagala shaqaadayna mahadsanidin soo dhawaada bogan hadii ay tahay markii ugu horeysay oo aad aragto fadlan soo raac ka mid noqo saaxiibadeena sida maalinlaha noogu taxan halkani way madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa war culus ka soo saaray khilaafka culus ee kala dhaxeeya madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo waliba sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni isagoo xalay markaasi kulamo xasaasi ah oo la qaatay labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo waliba sidoo kale Caasho Sharaf oo uu sameeyay xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya taasi oo lagu gurfeynay xaaladda dalka iyo waliba sidoo kale isbedelka siyaasadeed khilaafka kala dhaxeeya waa markaasi labada maamul iyo waliba sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya qoraal yar oo uu markaasi ka soo baxay misna lagu sheegay hadallada madaxweynaha ayaana u qornaa sidatan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay kulan gaar ah la qaatay gudoonka labada aqal iyo waliba xildhibaanada ee golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyagoona ugu hadlay arrimo markaasi ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana markaasi hadalka uu soo hadal qaaday khilaafka markaasi culus ee kala dhaxeeya labada madax oo markaasi labada maamul goboleed ee shirka wada tashiga golaha markaasi ee ka maqan taasi oo keentay waqtigan la joogay in markaasi haka duwan xitaa uu ku imaado fasaxa xildhibaanada ee markaasi ay lahaayeen labada bilood ee ku aadanaa waqtigan la joogay taasi oo markaasi hadda ay u muuqato in markaasi xildhibaanadu ay sii joogaan maalinta Khamiista ay soo aadana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu tagi doono xarunta baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Villa Hargeysa halkaasi oo uu kaga hadli doono xaaladda dalka iyo waliba sidoo kale muhiimadda ama sababta markaa loo joojiyay in fasaxa ay galaan taasi oo hadda keenaysa in markaasi labada mas'uul ee ka maqan shirka wada tashiga qaran ee uu markaasi sheegay in markaasi diyaar u yahay in la hadlo oo markaasi lala wada xaajoodo misanaba u safro oo halkooda ugu tago hadii ay ogolaadaan in ay yimaadaan markaasi ay soo dhaweynayaan markaasi uu halkaasi wada hadal toos ay la galayaan ama ay la yeelanayaan madaxweynaha ayaana yiri waan u yeeraynaa hadii ay noo imaadaan walaalaheena diyaar ayaan u nahay inaan markaasi ka wada xaajoono wax walba tabasho ah misana markaasi jira hadii ay noo ogolaadaan inaan u safarno meeshooda ugu tagnana diyaar ayaan u nahay waa u tagaynaa oo waan la hadlaynaa horeyna waa u wada hadli jirnay mar walbana hadii ay noo imaadaan waan bariina oo wixii tabashooyin ana si hoos ayaan u wada xalisan karnaa isjijiid iyo dhibaatooyin kala duwan halka ayna dhigtay waan soo aragnay taasina hadda la joogay looma baahna Soomaaliyana waa ay ka gudbaysa ayuu yiri qoraal misana hadalka madaxweynaha oo markaasi lagu sheegay madasha goobjoog ay ka hayaan gudoonka labada aqal ee baarlamaanka dalka iyagoo markaasi kulanka Caasho Sharaf uu ahaa inta badan markaasi la iska xog wareysanayay xaaladda guud ahaan waxa ay u muuqataa hadda in markaasi ifaalo siyaasadeed oo wanaagsan hadda ay soo muuqanayso hadiise labada madaxweyne ee ka maqan markaasi madasha wada tashiga qaran ay dib ay ugu soo laabtaan Soomaaliya halkii loo baahanaa miyay si amba qaadi doonta mise Axmed Madoobe iyo waliba Deni go'aankooda ay ku taagnaan doonaan aragtida qaybta safaalada ayaad nagu wadaagi kartaa mahadsanidin